السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كحرم فاتوش فمري السودة وهذا وولاشين فتوش channel كداودي شنو فاتوش فمري ما شاء الله السودة وهذا أصحابي نيوز كنا أبديت كسمان طي وحو كسابسية وحياة بدن سلسكي مدحوينها يوكرين أو هذلي كان هذلي ورورتيكي تاعك صدحات عبسي باسوس عطولها iyo sidoo kale waxaan ka hadli doonaa Joe Manchin oo taageeri waan taageeraya package-ka cusub ee soo socda oo ay soo sameeyeen dimuqraadiga axwaashaas dhan iyo sidoo kale waxaan ka hadli doonaa Chinese airline oo dhacday meelo buuray ku dhacday dadkii saarnaa iyo adduunkii soo dhawaada subscribe saara barnaamijka channelka waa channelkii Futush waa channelkiini aad bad uma haysantiin asxaabta aadka iyo xiran ee markasta ay daawata ee aad ii support gareysay barnaamijyadeeda dhan ku xiran thank you baan ilaahay dhamaantiin meesha joogtiin video like ka siiyo markasta like waxay ka caawinaysaa intuu gaaro videoga markasta insha Allah soo dhawaada السلام عليكم كسر دواد فاتوش فمري أونلاين ستور هالكاس أواد كهلي كرتي داهية آد وقروح بدن عصري وقدم بي كلا رأد وكلا دوان سيدو كلا وحان كوها يقوياشي السريرها نكو ميسكال السارة علاب بدن فلان هدا أحيسيني سيداهي داسي علاب تاس إيقالسو حرير سناب شات كأما ترافن كشاشة كو قران شيبين وان سمايا يونايتد ستيت هدي عادكو شهر haddii aan ku hormarno Zelensky ayaa hadlay waxa uu yiri wuxuu rabaa in ay asaga iyo Ruushka Putin inay wada hadlaan oo wada fariistaan wada fariisigaas oo looga hadlayo dagaalka socda iyo duqeynta ay wadaan Russia oo ay ku wadaan Ukraine waxyaabo badan baa laga hadlay wuxuu yiri hadii la cala wada hadalkaasi uu socon waayo waxa dhici doona dagaalkii adduunka ee saddexaad dagaalkii adduunka oo saddexaad ayaa dhici doona miina wuxuu taagan yahay haddaan labadeena go'aan isku gaarin go'aankaas oo ah inuu ciidankiisa la noqdo Russia uu ka Ukraine uu u daayo inay yihiin wadan xor ah oo daris ah oo dimuqraadi ah haddii dhici weyso in adduunka saddexaad dagaalka ah uu dhici doono saadaalintaas buu sameeyay sidoo kale waxaa la sheegay Mariupol waa caasimadda ma aha caasimadda Kiev waa magaalo kale weyn in markii ay soo duqeeyaan ama meelaha u dhow ciidamada Ruushyaanka oo ay duqeeyaan dadka jooga baa lagu yiri oo markaas meesha ay imaadaan ay ku qabtaan ama Russia yani waxa laga wadaa Ukraine in ay u wadanayaan dalka Russia ajaayib waa mid iga yaabisay inay u wadanayaan yani qof kastoo ay arkaan ma sii deynayaan way wadanayaan waxay geynayaan dhinaca Russia ay u gudbinayaan bay geynayaan dad badan bayna qabsadeen baa leeyahay marka aad bay xaaladoodu u sii xumaanaysaa cidaasna waxay kaga dhigantaa falaamadii Putin waxay kaga dhigantaa in uu qabsado Ukraine waxay leeyihiin daawilina way istifaacayaan intuu sii socon doonto lama oga duqeyn iyo missiles meel kasta haday ahaan leedahay xarumo maanta waxaan arkayaa meel shopping center ay ku dhufteen oo baabah ay ka dhigeen meesha dhan meelahaas dhan meel kasta oo u ah baa leeyahay xarun haday ahaan leedahay yani meel wanaagsan bay target gareynayaan haday ahaan leedahay meel military haday ahaan leedahay star taana meeshan shopping ka maanta ay target gareeyaan marka bal waa arki doonaa in wada hadalkaas wixii ka soo baxa iyo wixii uu laga dhaho sidoo kale maanta Chinese airline oo wada baa dhir 132 qof ayaa waxay ku crash gareysay ku dhacday buuro waxa la yiri waa wixii ugu xumaa dhacdadii markii la diyaarada dhaho ee ku dhacda aad baan looga xumaaday soo dadkii dhan iyo diyaaradii baa meeshaas ku wada baaba'ay dawladdu waxay amartay in lagu sameeyo investigation qasaarahaas dhacay dadkiina tacsiba u dirtay wax fiican maaha marka waa 132
dee waa la crash gareys way la baabeen dadkii kulay magaaladooda le iskaga shaqeynaysay marka I hope inaad dad aysan ku jirin dad kasta waa bini aadan oo human being sidoo kale haddii aan gudaha America usoo noqono Joe Manchin si ay ogtihiin dimuqraadiga ayaantaan iyo Republican waliba dimuqraadiga jiid aan ku jiiday waay waxa waay package badan baa laga sugay stimulus check badan baa laga sugay child tax credit baa laga sugay package-kii hore waa tii taakada ku qabtay Joe Manchin hadda wuxuu soo saaray statement ah in package-ka la draft gareynayo oo la sameynayo in uu taageersan yahay package-ka lama shaacin weli waxyaabaha uu ka kooban yahay laakiin kulli wuxuu ka mid noqon doonaa dadka draft gareeya in still ay soo saari lahaayeen dimuqraadiga yani madaxweynaha wuxuu rabo kale yiri soo saari lahaa ayakaba isku imaanaya wixii markaas ay rabaan inay sameeyaan baa la draft gareynayaan soo ayakuma draft gareynaya dad leeyihiin u sameeya laakiin waa wixii ay ku og yihiin oo ay approve gareeyaan sidoo kale Joe Manchin wuxuu rabaa ayadoo la og yahay package-kaas hadii lacala soo baxo in only democracy ay pass gareysanayaan because of siyaasad waay doorashada iyo waxyaabaha haddana wuxuu taagan yahay package-ka laftirkiisa pass gareynta kama hadlayo waxyaabaha la gelinayo lagu darayo waa inay Republican-ka input kala haadaan waa in ay fikrado ku darsadaan oo ay og yihiin waxa uu package-kaas yahay at least xataa haddii wuxuu yiri aysan u codeynaynin waa in waxyaabaha lagu qaban doono ayakana la weydiiyaa waxa ay rabaan iyo sida ay rabaan kala soo qaad waxay dhahay waxa rabnaa wixii baa lagu soo darayaa hadhow markii codeynta la keenay way ka codeynayaan waa siyaasad qalifan because wixii aad waaba rabtaaba waxaaba tiri hadda kala soo qaad Mitroni haddii child tax credit uu rabo u dhahay child tax credit ha lagu daro Republican badan ee ku child tax credit ha lagu daro ay dhahaan la isku wada raaco asahadhow miiska markii la keenay dhahaan anagu ma pass gareynayno because waxay diidayaan guusha inay u hooyaan dimuqraadiga fiiriya markii la isla soo gala hadhow miiska dooda la isla imaado waxa taagnaanaysa aniga waxaasan baas garey adiguna waa igu raacday waa soo ku raacidaas ay diidayaan kaliya ayagoo wixii rabaan ay ka codeynayaan marka waxa la sheegay in package-kaas markasta waa la sheegaa in package cusub soo socdo laakiin waxa uu yahay hadda ilaa hadda ma la oga wuxuu yahay laakiin kulay waxyaabihii package-kii hore ku jiray Biden build back better wax kamida ayuu ahaanaya horta sida la sheegay college-ka out bay ahaanaysaa lacagta paid leave-ka I think out bay ahaanaysaa laguma dari doono soo inta kale waxaa soo haraysa package-ka dee wax lagula dagaalamay inflation-ka sicir bararka sida dadka looga caawinaa main point-ga cost current bay ugu caayaan waa waxyaabaha cost-ga waxaynay wax hoos u dhigay package markii ila suga package-kaas ana inay soo gudbin doono markii ugu horeyso oo la sheegay diilayd ma aad badu maasantiin asxaabtay hadii maalin ku taa maalin wanaagsan deehin ku taana deehin wanaagsan subax wanaagsan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh